militariga Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in hogaamiyaha ururka Xamaas Yahya Sinwar ay ku direen weerarkii ugu dambeeyay ee duqeynta ee ka dhacay Jabaaliya ee marinka Gaza waxaana hoosta laga xariiqay in ay meydkiisa baaritaan ku hayaan oo ay DNA ku sameyn doonaan waxa ay aaminsan yihiin meydkaasi hayaan inuu yahay Yahya Sinwar afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay waa suuragal in hogaamiyaha ururka Xamaas laga taqalusay wuxuuna intaas ku daray marxaladan dhimashada ama geerida Yahya Sinwar lama xaqiijin karo ciidanka militariga Israa'iil bayaan ay soo saareen ayay waxay ku sheegeen in ay baaritaan wadaan ayagoo la kaashanaya ciidamada sirta gudaha ee Shin Bet loo yaqaano in ay suuragal tahay ninka la dilay inuu yahay Yahya Sinwar kadib markii howlgal military lagu qaaday Gaza bayaanka ayaa waxa lagu daray intii howlgalkaasi ay wadeen ciidamada militariga ee marinka Gaza saddex kamid ah dagaalyahanada ururka Xamaas in laga taqalusay waxaana intaas lagu daray ciidamada militariga Israa'iil iyo Shin Bet in ay baaritaan ku wadaan suuragalnimada ay tahay in mid kamid ah meydadkaasi uu yahay Yahya Sinwar waxayna carabka ku adkeynayaan marxaladda hadda la joogo suuragal ma aha in la xaqiijiyo haybta saddexda qof ay meydkooda gacanta ku hayaan dhismaha laga helay meydadkani waxaa la leeyahay laguma arag dad kamid ah maxaabiista Israa'iil sida bayaanka lagu sheegay waxaa sidoo kale la sheegayaa oo ciidamada Israa'iil ay sheegayaan iyo ciidamada sirta gudaha ee Shin Bet in ay weli wadaan howlgaladooda ka socda ee goobaha lagu dagaalamayo iyagoo aad u taxadaraya ugu yaraan dhinaca kale 22 Falastiiniin ayaa lagu dilay qaar kalena waa lagu dhaawacay oo ay ku jiraan dumar iyo caruur markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen iskuul ay ku jireen dadka barakacayaasha oo ku yaala xerada qaxootiga Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza wararka Falastiiniinta ka soo baxaya ayaa sheegaya in la duqeeyay iskuulka la yiraahdo Abu Hussein oo ah dugsi hoose oo qaramada midoobay gacanta ku hayso gaar ahaan hay'adda gargaarka qaxootiga bariga dhow UNRWA la yiraahdo ee qaramada midoobay waxaana halkaasi ay gabaad u tahay ama kooxda dad barakacayaal ah oo ka soo qaxay deegaanka la yiraahdo Jabaaliya xeradaas qaxootiga Jabaaliya ayay ka soo qaxeen dadkan intooda badan ee waqooyiga marinka Gaza waa gartay maxamed wararku dabcan waa iska soo daba dhacayaan mar waxa la leeyahay meydka waxa laga helay dhanka Rafah oo sida hadalka loo dhigay ninkan warbaahinta Israa'iil ku tilmaamaysa inuu yahay Yahya Sinwar waxa la sheegayaa in uu la socday laba dagaalyahan oo kale isla markaasna ciidanka Israa'iil iska hor yimaadeen dagaal toosana oo dhex maray marka marna waa Jabaaliya leeyahay duqeyn baa ka dhacday marna waxa la leeyahay waa iska horimaad ka dhacay dhanka xerada qaxootiga dhanka Rafah ayaan ula jeedaa wararka marka waan ku weydiin doonaa arrintan waxay ka macno tahay laakiin wararka kale degdeg ah haddaan eegno telefishinka kana 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu tibinayaa in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu haatan si degdeg ah kulan uu isugu yeeray golaha amniga Israa'iil kulankana waxa la sheegay inuu yahay kulan wada tashiya sidoo kale Sky News ayaa waxa uu tibinayaa in waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka ay sheegtay inay xiriir la sameynayso madaxda Israa'iil waxaan laga wada hadlayaa baa leeyahay wararka sheegaya dilka Yahya Sinwar sidoo kale waxaa jira warar tilmaamaya sida telefishinkana 14 uu sheegayo telefishinkana 14 inta badan waxa lagu tirayaa afka Netanyahu inuu yahay wuxuu leeyahay qofka la helay meydkiisa waxay u badan tahay Yahya Sinwar inuu yahay sidoo kale wargeys ka leerado iyo dacwada xarunta Israa'iil ka soo baxay waxa uu sheegayaa in DNA-ga la qaaday ee haatan wuxuu u muuqdaa baa leeyahay warka ugu horeeya inuu yahay Yahya Sinwar laakiin ilaa iyo hadda inagu ma hayno xaqiijin rasmi ah oo Israa'iil booliiska ama Shin Bet ama sirdoonka ama militariga ama xukuumaddu ay ku qiranayaan dilka Yahya Sinwar sidoo kale kama hayno wax wara dhanka Xamaas oo ku aadan Yahya Sinwar in la dilay waayo maxamed waanu imaan doonaa warar kale degdeg ah wixii soo kordha
Israa'iil ma aha markii ugu horreysay oo ay tirada Sinwar waan dilnay ama mas'uuliyiinta kale ee ururka Xamaas bal dib noogu celiya taariikhihii hore wixii horey u dhacay. hadda ka hor markii ay duqeyn ballaaran u geysatay Xamaas Israa'iil u geysatay xiriq qaxooti ah oo guryaha oo ka samaysnaayeen baco ay la dhacday bamamka aadka u culus ee Mareykanka ayay waxay ku andacootay in dadkaas qaxootiga ah ama barakacayaasha inuu ku jiray Maxamuud Daif kadibna waxaa caddaatay in warkaasi uuna run ahayn Xamaasna mar dambe ayay sheegtay in uu bad qabo oo uu fiican yahay tan kale oo ayadana xaqiiqada ah waxa weeye guriga Yaxya Sinwar hadda ka hor Israa'iil ayaa si weyn u duqeysay gurigii oo burbursan ayay waxa ay sheegtay in ay uu ka mid ahaa dadkii ay meeshaas ku dileen bas haddee dhowr maalmood ka bacdi Yaxya Sinwar laftirkiisa ayaa gurigii ay burburiyeen inta tegey kuraastii burbur ku dhex jirtay ah inta fariistay sawir laga qaaday waxaa ayadana xusid mudan oo daawadayaasha HBN inaan u sheegnaa in dagaalka Rafax markii uu bilaabanayay ay Xamaas gacanta ku dhigtay nin u eg Yaxya Sinwar oo Israa'iil inta qaadatay muddo soo baareysay kadibna ay soo deysay kadib markay hubsatay inuu Yaxya Sinwar ahayn hadda wararkan soo baxaya ma aha kaliya in afka ay ka sheegayso xukuumadda Israa'iil waxa ay soo bandhigtay sawirro muujinaya nin u eg Yaxya Sinwar oo cimaamad ay madaxa u saaran tahay dhaawacna madaxa ka qaba xiranna dharka militariga iyo qori suunka askarta Soomaalida ay Bosch u yaqaanaan xiran hase ahaatee ilaa ay haddeertaan war sugan oo la xaqiijin karo ururka Xamaas kama soo bixin waxaana cad Israa'iil markii ay weerar ku qaado goob ay UN-ka gacanta ku hayso oo ay waqaco weyn ama dhibaato weyn ka geysato inta badan waxa ay ku marmaraysotaa in ay nin mas'uul oo weyn ay disho marka wararkaasna ma aha warar cusub hadda ka hor dhowr goor ayay dhaceen laakiin haddeertaan wararka iska soo daba dhacayo dhan waxay tilmaamayaan inay Israa'iil ku andacoonayso baaritaanka hordhaca ah ee DNA-diisa lagu qaaday in ninka ay meydka ay hayaan mid ka mid ah inuu Yaxya Sinwar yahay waaya maxamed warkaasaa hadda aad u soo taraya warbaahinta IBC leerada ee Israa'iil laga leeyahay waxay sheegaysaa in loo xaqiijiyey si rasmi ah qofkii DNA-giisa la helay inuu yahay Yaxya Sinwar oo mar dhowna la soo saari doono war rasmi ah oo Israa'iil ku xaqiijinayso dilka Yaxya Sinwar sidoo kale waxa la leeyahay Israa'iil waxay la xiriirtay wadamada gobolka iyadoo u sheegaysa sida hadalka loo dhigay dilka Yaxya Sinwar sida ay sheegayso warbaahinta Israa'iil warkan waa wararkii ugu dambeeyay waxaanu sugaynaa waxay tahay jawaabta Xamaas ka soo baxda sheegashada Israa'iil iyo mas'uuliyiinta Israa'iil markay sida rasmiga ugu dhawaaqaan laakiin warbaahinta Israa'iil sida IBC ama hay'adda warbaahinta ee Israa'iil wararka u faafisa iyo sidoo kale telefishinka leeyahay kanaal 12 dhamaantoodba waxay sheegayaan inay xaqiijinayaan DNA-ga la qaaday in jawaabta ka soo baxday ay tahay qofka meydkiisa la helay inuu yahay Yaxya Sinwar sidoo kale telefishinka kan ayaa isna sidaasi haata timinaya waxaana sidoo kale jirta in si rasmi ah loo xaqiijinayo arrintaasi waaya maxamed dabcan ilaa hadda Xamaas kama hayno warka geerida Yaxya Sinwar ama dhanka Falastiiniinta ama iska caabinta haddiiba ay noqoto Yaxya Sinwar geeridiisa inagoo dabcan wixii soo kordhay falaqayn doona si kooban laakiin barnaamijka soo gabagabayna su'aashaas maxay uga dhigan tahay Xamaas iyo iska caabinta Falastiiniyiinta haddii uu geeriyoodo Yaxya Sinwar Xamaas hore ayay u sheegtay haddii mas'uuliyiinteeda mid ka mid ah uu geeriyoodo sidii Ismaaciil Haniya in isla markiiba ay bedel sameynayaan Ismaaciil Haniya markii uu geeriyooday Israa'iil waxa ay filaysay in ay caqabad weyn ku noqon doonto ururka Xamaas laakiin waxa fogaaday wadahadaladii ninkii wadahadalada kula jireen ayaa dhintay waxaana la doortay Yaxya Sinwar oo ah nin muddo dheer ku jiray halgankan isla markaasna aanan tanaasul iyo waxaas aqoonin wadahadalada markay timaadaan aan waxba loo yeerin karin inta marka la yiraahdo Israa'iil muddo dheer ayay raadinaysay in hadaf guul u eg in ay ka gaarto ururka Xamaas waliba dhowrkii maalmood ugu dambeeyay dagaalkan Lubnaan ay kula jirto ayaa aad u soo kululeeyay oo dhibaato weyn ciidankooda u geysanayay waxa ay habeen iyo maalin raadinaysay in ay hadaf gaarto duqeyn joogta ayay waxay ku waday waqooyiga Gaza gaar ahaan magaalada Gaza
oo burbur baaxad weyn ku waday haddii warkani uu run noqdo Israa'iil waxay ku tillaabsatay mid ka mid ah guryihii ugu waaweynaa in ay laba mas'uul oo waaweyn ay ururka Xamaas ka disho laakiin Xamaas isla markiiba waa bedelayaan oo ciday ku bedeli lahaayeen lama yaqaano laakiin haddii ay xaqiijiyaan inuu ninkaasi dhintay ma qarinayaan waana bedelayaan laakiin arrinta kale oo ayadana meesha ku jirtaa waxay tahay ururka Xamaas iyo ururka Xisbullah baryahan dambe maadaama Israa'iil ay siyaasadeedii isu bedeshay inay madaxda ugaarsato ama madaxda ay weerarayso waxa iyaga lafkooda bilaabeen inay macluumaadka qaarkiis ay ola dhaqmaan si ka duwan sidii caadiga u ahaan jirtay tusaale ahaan Israa'iil ayaa waxa ay sheegatay in ay ninkii lagu bedeli lahaa Sheekh Xasan Nasrallah in ay beegsatay muddo dhowr iyo 10 maalmood ka hor ah ilaa ay haddeertaana ay weli ilaashato goobtii ay sheegtay inay ku duqaysay oo cid u dhawaan karta in la arag si ay u hubsato ninkaas inuu dhintay laakiin wararka soo baxay oo dhan Xisbullah marnaba ma xusin ninka geeridiisa iyo war ku saabsan